Somaliye toso iskutirsadaye habakina tagdarane tagera weligine. munaasabadan ballaaran ee lagu xasuusanayay waxqabadkii halgamayaashii gobonimo doonka SYL ayaa si gooniyaha loo xusay Allah u naxariistay Cali Xasan Farduura oo ahaa halgamihii ugu dambeeyay ee ku geeriyooday magaalada Nairobi sanadkii la soo dhaafay. haddaba waxaa ka soo qayb galay boqolaal Soomaaliya iyo waliba odayaashii leegada ee ururkaasi oo si aad ah ula socday dadaalkii dhalinyaradaasi. daahir cismaan dhegweyne ayaa isna qardha ku dhintay isagoo ahaa kii 12aad ee geeriyooda. waxa taariikhdooda halkaasi dadweynaha ku xasuusinayay odayaashii u soo joogeen ilaa iyo maalintii xurriyadu aynu qaadanay. 13 oo isugu yimid ma ahayn dad oo isku meel kaliya ka soo jeeda. waxay ahaayeen dad oo meelo kale ka yimid oo isbahaystay markay ogaadeen Ingiriiska markuu soo galay dalka oo British Military Administration soo galay marka Talyaanigii meesha joogay waxay sameysteen meel ay isugu tagaan. marka Soomaalidii meesha dhalinyaradii waxay war maxaa anaga noo diiday bal anaga laftee meel yar oo aan isugu nimaado aan isku wareysano oo wixii tala noo ah ama wixii aan doonayna inaan dadkeeni aan u qabano bal marka hore meel aan isugu nimaado. Cali Xasan Cali haddaan u soo noqdo anagu saaxiib baanu ahay wax badan baanu wada soconay leegada anu markii aan soo galay anu 49 baan xamar imisideedaba isla markiina leega ku biiray horseed iyo hadii laba kuurin yahay commentator local wax loo yiraahdo local committee of SYL. Cali wuxuu ka mid ahaa halgamayaashii inkastoo uu markaas ganacsade ahaa oo meesha magac ugu baxay uu lahaa meel lagu iyo qudaarta ayuu lahaa magacuna saas ugu baxay Cali Farduura. Cali Farduura geeridiisii Allah u naxariistay ayaynu halka isugu nimid. faatixana waa loo akhriyay isaga intii kale iyo inagaba ilaahay inuu cadaabta naga badbaadiyo isaga awood leh ilaahay cadaabta naga badbaadiyo. way iska hadaltiro haddii aan waxa xaqiiqada la sheegin qofku taariikh buu ka tagaa. Cali Farduura iyo ragiisa taariikh bay ka tageen waa kuwa ma duugoobayso inta xumaanta samaysana taariikhda ka tagayaan ma duugoobayso. SYL taariikh fiican bay soo martay hawl wanaagsan bay qabatay. anigu waxaan ka mid ahaa dhalaankii yaryaraa caruurtii ma taqaana 7 jirka 8 jirka 9 jirka 10 jirka ahaa oo guriga habarta iyo ma arta dariska iyo inta arkayay. haddaba 13kaasi dhalinyaro ee ka mid ahaa xisbigii SYL waxay ahaayeen kuwa aqoon maadiya aysan lahayn laakiin waxa ay ku mideysnaayeen mowqif ah in dalka laga xoreeyo gumistaha haysta. maanta waxaa jira dhalinyaro aad u fara badan ee wax baratay kuwa ku sugan dalalkan reer galbeedka iyo waliba kuwa ku dambeeya dalkii Soomaaliya. fanaanada caanka Maryan Mursal Ciise oo ka warbixinaysa dhalinyarada halkan joogta iyadoo la dardaarmaysana kuwa u soo hanqal taagaya inay soo gaaraan dalalka reer galbeedka waxa ay tiri waayeelkii waa dhinteen dhegtiya dhamankay hayaan caruurtu ma dhowrayaan ninkii soo dhoofilayow dhibkaasa dabada yaala wixii dhalin dibadda yimid qaar baa dhaqankii ka tagay carabka afartiisa dhinac dhagaha dahab bay surteen ninkii soo dhoofilayow dhibkaasa dibadda yaala dhexdii hablaha wacnayd dhabarkii bay qaawiyeen xudunta dhakhtar baa ka muday ninkii soo dhoofilayow dhibkaasa dibadda yaala waa ama ku imow ama meeshii la jooga ama xabad ha idin qaadato ama baasuuka la idin la dhaco ama imaado oo waxaas u diyaar garooba ama meeshii la joogo xabada u diyaar garooba waay. dhanka kalena waxaa jira urur lagu magacaabo Ha Noolaato oo isagu daba socda raadkii ay mareen 13kii SYL. gabadhani oo lagu magacaabo Zakiya Xuseen
waxa ay ka mid tahay xubin ururka Ha Noolaato iyadoo halkaasi ka soo jeedisay himiladooda iyo weliba dadaalka ay wadaan. waxa ay tiri Zakiya qofka hal mar haduu dhinto wuu dhintay laakiin qofka haduu fikrad keenay oo asiin uu dhinto oo fikradan la dhimata laba mar muu dhimanino saas qaraaway haddaan qarankay u istaago oo qabyaalada hor istaago qaraaway qalad ma ku dhaqaaqay haddaan qaadirkii weynaa tala saarto oo quraankiisa midigtay ku qabsado qaraaway qalad ma ku dhaqaaqay 13 geesi taariikhda kama baxaan gumeysigiina gubayay gunta u jareen garadkooda ku gaareen go'aana badan waxba hay isku soo guntahayeen guyaha badan waxay geerida ka doorteen gumaysi baan kowdii luulyo sanadii 1960kiina waxaa magaalada Muqdisho laga taagay calankan quruxda badan ee buluga ah xidigta cad dhexda uga taala waxaana ahayd markii koonfur ay ka xorowday gumaystihii Talyaaniga waana markii ay midoobeen waqooyiga Soomaaliya iyo waliba koonfurta dalka Soomaaliya waxaana habeenkaasi goobjoog ka ahaa 10 kamid ah dhalinyaradii aasaastay xisbigii gobonimidoonka ee SYL iyadoo 3 kamid ahna horey u dhinteen intaanay xorriyadu aynan helin si kastaba ahaatee Cali Xassan Barduuro oo isagu kamid ahaa dhalinyaradii ugu da'da yareed wax xisbiga uu ku soo biiray isagoo 18 jir ah Allah uu naxariistay Cali Barduuro waxa uu ku dhintay magaalada Nairobi xarunta u ah dalka Kenya 10kii bishii 12aad sanadii aynu ka soo gudubnay waxaana maalinta xigta ee 12ka aynu ku beegneed maalinimo Jimcaha lagu aasay magaalada Muqdisho xarunta u ah dalka Soomaaliya waa halkii aasaaskii gobonimidoonka ay ka bilaabeen إبراهيم عمر بافي ورركة يونيفرسال لندن